2013 markaan subinay doorashada Raila markuu aaday maxkamadda sare High Court Supreme Court oo maanta la dhahay waa laga reeyay wuxuu yiri Raila Odinga markaas su'aashaas weydiisay waxaad tiri adigoo indhaha iga eegay taa maxaa ku keentay look me the eye صح aniga waxaan u arkaa in maanta in la expand gareeyo madaxweynaha executive oo uu leeyahay madaxweyne Fed prime minister iyo two deputy prime ministers iyo official leader of opposition dhanka iyo intaad gudigaas IEC interimka aad codsanaysay iyo midka kale IBC waxaa tiri waxaan ogaaday Kenya qualification kaliya inaan meel lagu tagaynin dhinaca kale arrimaha siyaasadda dadkan sameyn siyaasadda loo baahnaan taa hadda toogo noo jeclayso yes taas waxay ahayd markaan arkay si wixii ku dhacay Cecil Miller waa kii anigu horeeyay oo maartay la geeyay maxkamadda amin baarlamaanka marka kadib marka intay codeeyeen oo marka codeynta ka horena in maartay aad baa loo ataagay asaga iyo familigiisa iyo maartay qof maartay shaqada lama siinin maartay deeqana wala mariyay wax kasta lagu subiyay marka aad bay maartay farxumo wahay marka inaan taas aan qorin marka waxaan subiyay inaan horta waxa la wixii siyaasi ah u weyn maxaa la ahayd coalition government PNU iyo ODM PNU madaxweynaha wuxuu ahaa Kibaki ODM-na Raila waa prime minister marka inaan markaa aniga in maartay lagu suubiyo sidii lagu suubiyay Cecil Miller maxaa Cecil Miller wuxuu qualified shaqada uu qalmi wax kasta way waxay u siyaasada wax lagu dilay marka inaan task aan ka helo shield waxaan marka sidii inaan u yeero MPs-ka oo Northern Province waxay qabaan wax la dhaho Northern Kenya Parliamentary Caucus waa caucus way waxa gudoomiye waxa uu ahaa Allah u naxariistay Yusuf Haji bas waxaan isku yeernay Serena Hotel waan quraacnay marka waa loo sheegay marka ninkan wuxuu taagan yahay gudoomiye waa rasho dhigtay interview-ada marka MPs-ka marka way badan about waxay ahaan taan iyo kooxamiya qaar baa ka socdeen ODM qaar baa ka socdeen Jubilee PNU qaar baa ka socdeen KANU marka nin kasta marka waxa loo diray xisbigiisa bal meelaha sidoo kana ninkan markay uu imaado interview-ga yaan lagu soo bin boqbogos that's why Yusuf Haji wuxuu u tagay madaxweynaha Kibaki iyo PNU-giisa Farah Maalim asaga waxaan ku dhaafnay ODM maxay wuxuu ODM waxa Abdulrahman Colow Jubilee waxaan ka asaga aadan sugo KANU waxa kana ada marka ala kulli xalin kasta oo MP aha meeshii ay maartay wax qaban kareen ama ay kala hadi kareen yaa loo diray that's why aan u suubiyo marka wuxuu ahaa back dhow maartay negotiations inta wali soo gelin shaqada waa gartay gudiga shaqada aad bilowday mucaarad fara badan iyo codad fara badan aad yeelatay IECD waxaad uga soo gudubtay IEBC dadkii IEC iskala tirsanadeen kaliya iyo hal commissioner kaliya ayaa IEBC u soo gudbay arrimahaas iyadna dad wax nooga taabatay horta IEC shaqo fiican bay qabatay runta maxaa yeelay waxa la wixii boundaries oo by elections-ka maartay dambe oo aan la qaban si fiican kudi waxaan qabanana by elections-ka kudigoodaba hatta kuwa maartay oo laga reeyay way ogolaan karan toos bay sheegeen in laga reeyay maxaa waxaan keenay technology la dhaho results transmission oo maartay waxa tusay maartay TV-ga all the stations iyo constituency headquarters-ka ayaa qof kasta loo sheegay marka qofkii marka guuleysay martay waa arkaysaa ayaga maxay lay dib bay korbe ilaa dhamaato marka waxaan kala gudi markaan soo banay referendum idana markii ay guuleysteen kuwa yes kuwa no waxa weynaa William Ruto asagana wuxuu u yeeray press conference Bomas of Kenya wuxuu yeeray waan ogolaanay in nagala reeyay oo qadanka ay reeyeen marka waxaan ku soo wadaa IEC shaqo fiican bay qabteen oo nin kasta aad buu maartay u qanacay marka waxaan confidence ka maartay dadka u lahaayeen gudiga doorashada iyo aniga aad buu marka u sareeyay marka iyadoo saas ay wali
wixii weyn aan qaban wuxuu ahaa doorasho oo referendum ma ahayn doorasho madaxweyne ma ahayn doorasho kale oo taas waxay noqon markii oo 20 aan noqonay IBC marka inay IBC la noqdo marka waa chairman iyo commissioners 8 of them in la qarso maaha marka waxay noqotay very high stakes maxay lay muxuu ra'iisul wasaaraha aad baa ulaha interest maxay asagu wuxuu inuu istaago madaxweynima oo Kibaki markaas meeshuu uu ka tagay marka aad buu marka u fiirinay maartay dadka soo gali doona gudiga ala kulli xaal laba commissioners oo aan aad u jeclaa oo aan lahaa maartay shaqo xumi ay qabanayeen Churchill iyo Winnie aykan waa meesha laga saaray hal commissioner baa yaa soo rabay oo mas'uuliyad Zibo kaasna wuxuu ku baxsaday xaaskiisa ahayd Dr. Sari Kusgey oo u shaqeynaysay ODM baa ahayd ODM minister baa ahayd marka I think inuu ku baxsaday sidaas I can be wrong inta ay socotay arrimaha ku saabsan in loo guuro IBC da Raila Odinga ayaa u tagtay inta Raila Odinga ayaa u tagay horta hooyo ayaa ku imaad Allah naxariista ay ku tiri waxaan ka har nin jaluwo oo ku rabinayaan hay'ata waxay book weyn way taariikh badan buu ku shaqeynaa sax horta badi Kenya my friends waxay dhaheen Axmed Shaqif ma qabtay iska dhaafada sax shaqadii IBC waa shaqo maxay waxaan ku soconaa doorashadii madaxweynaha iyo kon kale iska dhaaf marka hooyadii intaan hooyadii imaanina Law Society LSK ayagana waxay dhaheen shaqadan adan ku rabnaa صح qof kale ma soo apply gaysanayo adiga waana ku noqdo meeshaas oo toosa lagu sheegay صح laakiin ma rumaysanin ayka maxay leeyahay inkastoo ama kale aan doono marka laakiin markii ay soo qoreen applicationska interviewga waxay imaatay hooyaday ka imaatay Gaaris waxay tii waxaan ku imaaday duca qaado iska dhaaf shaqadanaydo apply gaysanan xaaskaygiina maartay ayadii maartay ay raacday bas waxaan ku yeey maxaa jira xitiri waxa la dhahay nin jalo oo la Raila ya ka dambeeya ku diidan ha ku rabeen marka waxaan iska dhaaf bas waxaan ku dhahay joog waan u tagi maanta bari haduu ogolaado waana faagasanayna dikale waxaan ku sheegi waan u tagi marka Raila Odinga waxaan la hadlay PS kiisa wuxuu aragtay Maxamed Isaqiya bas wuxuu yahay appointment u tagay waanu sheegay waxaan ku dhahay hooyadii baa iga maad Gaaris san beetre marka ii sheeg hadii aad maartay support gareeni waad igu leedahay maartay you have confidence in me ii sheeg bas adiga waan ku rabnaa laakiin commissionerskada waxay maana male toos uu sheegay waa gartay Raila Odinga markaas su'aashaas weydiisay waxaad tiri adigoo indhaha iga eegay taa maxaa ku keentay look me in the eye صح look me in the eye waxa way qof way xunta inay qof oo ka weyn da ka weyn iyo xafiis ka weyn inaa saa ku tiro way xuntahay laakiin way dhacday waan dhahay asna ugu xumaaday صح waxaan soo waday marka aniga waxaan ka waday dadka adig kula shaqeeyo ama ha aadan MPs ODM Jacob Midiwo iyo Ayang Nyongo iyo kan adig kula miguna oo ku elatay oo ku duwada maalin kasta marka way haystaan صح ama ay qoran journal ama ay qoran TV ugu haystaan way haystaan aniga marka adan ka rabo marka inaan ka ogaado you know to be honest tell me the truth in aad ii sheegto adiga maxaa yeelay politicians wax bay ku sheegayeen wax kalena marka saa ku dhahay aniga waxay aad maartay I want a very honest answer from you inkastoo isaga markaas xun buu qaatay gartay kadib waad soo noqotay gudigii waa la dhaariyay shaqadii ayaad bilowdeen diyaar garowgii doorashada 2013 arrimo fara badan ayaa dhaxdan dhacay waxba ugu weyn mid hadad nooga soo qabato inta wixii ka horeeyay ama inta lagu guda jiray waxa jiray boundarieska muxuu ahaa xuduudaha yaan soo bilowtay reportkii oo legal ayaan qaadnay waan hagaajinay waan habeenay 290 constitution ka hagaajinay iyo 450 county assembly marka
haddii taariikhan u fiiriso waqtigii ay subinayeen boundarieska waqtigii guddiga ligaale waxaa jiraan dhib wuxuu ahaa lagu heshiin reportka notice yaa wuxuu ahaa report oo kikuyada ku jireen kikuyada iyo gema kagudi markaadimo afar kikuya ah iyo mid meeru ah way ka baxeen weydiin inay saxaan reportka marka waxay qabeen the own martay opposition against the reportka marka laakiin reportka marka baarlamaanka yaa ansixiyay أنا ممكن ولا كنا أنا أي سي رفض هوري لصو قري أو لصو مارتي لصو حبي أو نه كبدل ماشي مارتي أو نبل كإمادة أما خالد شرحان وكجرو وحير ما أنا كبدل وحير أبدا جاز روحها وعلى سوسبي صح سو بركي أن لما شغال بونريكا within 4 months أو أن ريبورت كي أن صودا وعنه أو أن جيني madaxweynaha aan u geyna iyo speaker iyo baarlamaanka yaa waxaa jirta markaa shir baan u kacnay madaxweynaha inaan u tagno ana iyo commissionerska iyo CEO-ga waa shirkii ugu horeysay oo aan la fariisano madaxweynaha anag madaxweyne Kibaki markaan galnay marka xabiiska wuxuu ahaa second floor asagoo waxaan u galnay miis qaraaxyo miis aad u xanaaqay wuxuu ka xanaaqsan yahay markaa reportka iyo dadka wuxuu ahaa bari amood waxaa jira waxay dhahaan 1 mile 1 vote vote iyo sorry 1 vote shilling 1 vote 1 man 1 shilling 1 vote 1 vote iyo 1 mile 1 vote 1 button taasay dadka oo dhulka maartay aad u fara badan waxay rabeen in la siiyo maartay recognition laakiin ala kulli xaalka kuyada ma jecleen sidoo wax soo baxay reportka madaxweynaha aad buu xanaaqsanaa sidii runtii aad buu xanaaqsanaa weligii aan ma arkin nin saas madaxweynaha Kibaki waxaa lagu aqaanaa inuu yahay qof oo iska degan oo aad maartay polite ah oo ku dhageysan laakiin baan taasiido aad buu xanaaqsanaa marka soo galnaa marka wuxuu yahay soo fariista marka dad uu degay kuwi kale marka iyo dhaxbiska ka baxa marka shirkii marka ayaa wada marka shirka aawdna marka waxaan u wadnaa reportka ka xanaajiyay yaan u wadaa miskiin uu saaran yahay wallahi marka waxay ahayd baalin oo aad imaatay ajibisay oo maartay dibkeeda lahayd waa gartay doorashada ayaa la qabtay in doorashada ololaha doorashada uu socdayna Raila Odinga iyo dadka mucaaradka ahaa waxay ku ololeynayaan ama kor imaasana Ruto iyo Uhuru dadka in dad ay dad maxkamada ku socda adigana arintaasi dadka madaxda reer galbeedka ama beesha caalamka markaad la kulanto walaaca arrimaha ay ka qabanay ku sheegeen arintaasi ka waran muxuu markii madaxweynaha Uhuru iyo Ruto lagu sheegay moogtay Hague Ocampo waxaa jiray hal Ocampo 6 صح وأهوري كنتا ويليام روتو أمباسادور مدورة head of public service هنري كوسجي سان عرب سان هو جورناليست جنرال علي كوميشنر بوليس لحد الحين موتاي marka laakiin ladan baa u istaagan doorasho kuwan kale mootay waxa ay dad oo istifaaca oo civil servants marka kuwan marka adamaha ka imaadeen wadamaha galbeedka waxay leeyihiin qof oo loo dacweeyay war crimes ma qabo integrity oo lagu doorto marka chapter 6 ay hadlaysaa martay integrity iyo leadership marka sidee marka u dhigi kartiin waxaan ahay democracy haddii laba qof oo lagu haysto war crime and crimes against humanity inay noqdaan maxkamad muxuu ahaa ambassador Johnny Carson oo Mareykanka ka tirsan wuxuu dhahay choices have consequences haddii markan aad waratiin idinka marka iskale waxay la imaadaan iyo waxay wadanka u keenaan ingiriiska wuxuu dhahay haddii la doorto anaka on meeshii waqti on the most essential contact وما لا يلينا هذيك كله على كل حال waxay ka dhigeen inay maartay dadka hadii la darto wadanka inuu maartay aad u safa of course ayagana hadii waxay dhaheen dadka u tageen waxay subiyeen campaign rally maartay waxay u aadeen FM ilayhi maartay waana la haystaa adamay waana haystaan Raila waana haystaa waxay noo dir rabaan Hague daradii ma noo dilhaa
marka dadkii marka uu soo kacay geema iyo maadka kuyida marka waa la soo waxa soo kiciyay maartay emotions marka aad bay isku soo diiwaan geliyeen si runtii markii doorashada aad bay isku soo bixiyeen marka ay ka soo doorteen si runtii aniga laakiin waxay maxay inkastoo aan gudoomiyaha doorashada waxaan aad jiray maartay ambassador shirarkooda cocktailskooda dhiina markay yiraahdaan marka waxay u ekaatay inaan maartay kuwan aan ku dhow yahay therefore inaan maartay sabab garin doono Raila Odinga marka saas darteed waxaan maray kuwa ku dhex jiraan systemka inay maartay isdheheen ninkan ama aan wax tusno ama maartay lesson soo saddex jeer baa marka lagu subay maartay arrimo oo aad u imaad in qalqaliin noloshaada qalqalgeliyay ku gartay dhanka iyo intay socotay doorashada marka codka la dhiibtay inta doorashada tirinteeda ay socotay siibatan madaxweynenimo arintan ay hadda ka leeyahay Ruto iyo Uhuru inay doorashada ku soo baxaan iyo waliba in natiijada ku dhawaaqdo walwal far badan ayaa ka hayay ilaa ay ambassador Amin ay kaaga imaado arrimihii ay kala hadasho taasina dad wax noo sheegto horta wuxuu markii oo intii wali doorashada angal qolan oo civil society yaa aadeen maxkamad inay marka maxay ka reebeen maxkamadda inay bixiso amar labadan qof inay maartay doorashada la hortaago laga reebo ma qabaan integrity oo lagu doorto maxkamadda marka waxay subiyeen judgment oo aad very strategic waxay dhaheen inay doorasho inay gal rabaan meeshii صح waxay soo qoreen ma jiro oo maartay officially from IBC kama ogno maxay la waqti nominationka lama gaarin waa next year way صح so hadii ay u qalmaan inay istaanin kale amarka waxa askale IBC guddiga doorashada anaka maaha صح waa marka si maartay tartiib ay uga bixinay ka aydaas anaka marka ugu raabeen صح anaka markii aan fiirinay sharciga markii oo aan bariyo kale aan subin doono nominationka ay ani waxa imaaday Uhuru PAGs James Turi wuxuu yiri Ahmed waxaan inoo sheegto duqa wala marin doona bis waa kale beesin waxii ma go'aan magaalada waan marnayna anaka guddiga waxaan fiirinay sharciga sayda markii aad maartay ku fikirto arrimaha ku fikir waxay marka hadii ay maxkamadda looga yeero oo loo diido bond oo maartay ma takartigan maxaa dhici doona wadankan mid kale hadii qabsay madaxweyne oo is convicted wadankan maxay dhigo ka doontaa waxaas ku dimaartay ayaad ka fikiraysaa waxaa imaatay Amina Jawair oo marka iyada ahayd waxay shaqeynaysaa UN-ta so he told me waxaas ku diwaan waayay ka fikiraysaa laakiin dadka ayaa soo doortay adiga shaqada waxa waaye natiijada dadka ay ku keeneen inaad sheegto waxaan kala soomaha ayaga subinaan politics ka bax marka saasan ugu dhawaaq marka waqtiga aad xiriir nooga marka waxaan ka codsanayaa jawaabaha inaad noo soo koobto aan ku hormara intaadan natiijada ku dhawaaqeen musharaxiintii kursiga madaxweynaha mid ayaad u wacday midba wax gooni ayaad kala kulantay Uhuru iyo Raila maxaad kala kulantay Uhuru horta asaga intuu isoo wixin intaan wixin ka hore ayuu isoo wixin jiray telefoonki marka ma qabanayeen maxay ma aqaanin telefoon waxa aan gareyn bas markii dambe waxa ay sheegay marka kan oo u weynaa security bombers wuxuu yiri German Uhuru oo soo baxay telefoonka ka qabo bas waan ka qabto aan la hadlay marka wuxuu yiri ariga wax kale ma rabo codna hay hadin muxuu ahaa in liga xadana ma rabo runtan oo la sheego markii kadib of course markii aan ku dhawaaqay doorashadana waan la hadlay oo sheegay marka inuu ku guuleystay oo maartay beriyaan siinayno certificate inuu maado reerana waan la hadlay asagana mudaan la hadlay asagoo waxay leeyahay waxaan rabay inuu maartay inuu ogolaado in laga reeyay laakiin waa diiday marka dambe marka mudabari waan la hadlay madakaro waan la hadlay kuwi kale waxay ahayn muduba diida ma helin habeenkaas ما كان لحظة شيء إيه حاجة دورشة نتيجة مركز كل وقت هذا محسوسن كرتا رياضة مركز نتيجة كل باقي سي إنه هو كقول سي وحير حتى تحسوسن كرتا أصله مركز ده يسوع
awoodda dastuurka ii siinayo doorashadii la qabtay hebel ku guuleysatay taxasuusan karto ereydaasi haya ما حليس موسى أو تضط مدة أخرى إيه آمن على أنت وحنقول صدري ما أعطي سبيش كأقول سبيش هذا وحيلا كمدة ينقص قرية وحرف كلام كبحثه مركب إيش إذا حاول يقفوا ما أعطي هذا مركب أو experience كوي أرماني إذا أو سبيش كمان أعطي قرالك so the first thing أنا ضدك ددوينها مثلا أنا وعي سمعتي مهت سي أصبحن سي مارتي دراسة أوقف قالن كدبنا مارتي ما أدعو لسه جورناليست مع ميديا يسيروا سايت يكون كل شيء قناعين كدب مركب عاد أوقف شو دراسة مركب وأنا أتسكتو شرع قصينا أنا كل واحد ما تحبينها ودستورك IBC Act iyo Election Act كدب مركب حليهن قضب جرا أو عاد كشيء جيزو هذا أنا جو مارتي كو رقم هاي مارتي السور كان أنت قدر كان أو سنة أو رأسا دورشة يكان أو IBC أيان كل واقع إنه يهاي مدحينها بدنك أنت كل واقع مدحينها هرت وأنا شكت شروطها لو بحية وإنه هذا 50% plus 1 إيو 25% in half of the counties marka inuu haysto 25% oo 24 counties inuu ka haysto marka kuwa marka haysto kadib ayaa marka ku dhawaaqaysa madaxweynaha maxallaha madaxweynaha la doortay president elect wali ma madaxweyne buuxo kadib natiijada marka lagu dhawaaqay mucaaradka ayaa ka hor imaaday maxkamadda ay aadeen maxkamaddii idinka ay idinku raacday doorashada inay xalaal ahayd kadibna dagaal xoogan ayay kugu qaadeen keentay in guddiga IBCdii komishineeradii ay shaqada ay ka tagaan buugaaga waxaad ku sheegtay 3 bishii 8 sanadka 2016 in waqti mugdi uu ahayd guddiga doorashada taadadana xasuusisay 2013 markaan subinay doorashada Raila markuu aaday maxkamadda sare High Court Supreme Court oo maanta la dhahay waa laga reeyay wuxuu yiri I accept the result of the Supreme Court, but I don't agree with it. لما أقول مرة كنت مرة أصبح iyo ku jireen civil society maartay iyo media maartay yaa marka waxay ugu bilaabeen campaign dadkan waa corrupt waaye ma qabaan integrity lacag baasi uhuru all manner of allegations say socotay marka waxay isku dayeen marka inay commissionerska shaqada laga eriyo waxa jira nidaam baa jira lagu shaqada loo eriyo commissionerka nidaamkaas wuxuu qoran yahay guddiga oo sare wuxuu qoran yahay constitutionka article 254 oo leeyahay waa inay keento petition baarlamaanka keenaysa sababaha u rabto in qof dadkan shaqada looga tiro kadib baarlamaanka committee ayaa fariisanaysa oo idin dhageysanaysa hadii ay maarta ay ogolaato waxay u gudbinaysaa baarlamaanka weyn full house waa lagu codeeyay kadib waxa loo geeyay madaxweynaha ayaa markaas suubinay maartay tribunal wasi aragtay oo shirarafo taas marka waa muddo dheer bay qaadanaysaa iyo waqti weyn marka ODM way isku dayeen marka 2014 waxa la keenay petition aniga commissionerska in shaqada tiro waan isdifaacnay baarlamaanka waxay dhaheen waxba ma jiro waa la tuuray 2015 ayana waxay keeneen petition kale asagana sidoo kale waa la tuuray markay arkay inay petition caadi ay ku guuleysan karin waxay keeneen amendment to the constitution oo hala oo Kenya referendum ay keeneen oo ku jiraan maartay qodob far badan 30% in la siin maartay oo lacag in la siin doono county government hay'ad kasta oo dawli ah 30% inuu hal qabiil ah noqon karin waxyaabo badan bajireen dan waxay ku dareen IBC idana inay ku qada haystaan shaqada in laga saaro oo lagu bedelo kuwa xisbiga ay keenayeen marka waxa jireen a lot of kiyo marka noo keeneen anaka markaan fiirinay waxay ahayd inay 1 million signatures inay sabab gareeyaan marka 800 baa yaa keeneen صح marka u sheegay Raila marka aan ku dhahay inta wali aan
ويري بريس كونفرنس يا أصلا ويري أو فيري واحد كنتن و تردد الربي ما قارن مركا عوير مركا بوي مايا وقت نسيان كوب بحين هذا بقول واندي دمرك وحنا هني و دب أو نقطة again go back to again fresh back to zero تيجي مركا خانة جس بحب اللبن أو لا له IBC must go protest فريمبي movement ها مركا وتاريخ بيلاد هاي على كل حال مركي أو ما اللي كسته يسوبرين دجال أو ما يادنا إمارة حرنته تذكر أي كده لين ما دجال كيو يقرأ لها يا وحي أصول مركا business community ما هذا international community مارت ambassador كا USA UK يو وأصول قرين يو ذكراجي مسلمين يو NCCK Catholic Church هذا أصول حالي وحن حال لميو سلوا لمن كره لمن كان هلسيو وحي أو وهارة كويتون برود هلسيو مشاركة وذا يبيح جراجوتي هنقطعان ساسا مارتي كوزو بيرن كرنا 350 مليون اللي نسوسيه أورو نوحو يري نيكا نوحو عصدو هلسيو أنا كان أكيد لمشي قدان كوذا واقرتي ما كاش الله يسوي وحفظا معصن لهاد قال لهاد ما انت نسيين انت نسي حياه انه حياه الشرعيه اقونسن صح waxaana la siiyay lacagta la siiyeen waxay يموت baarlamaanka mariyeen maxay budgetka muxuu July August waa past June mootay ma jirin budget kale waxa jira halaha supplementary budget geeyeen muxuu baarlamaanka marka lacagta la siiyay 280 waxay 350 taas waxa la mariyay baarlamaanka ayaga soo baas mariyeen kadib baa markaan la siiyay lacagta sahaatee markii aan isku umaanay gudiga oo baarlamaanka iyo senadka oo loogu talagalay inay maartay habeeyaan sidaan ku bicleen iyo si kuwa kale loo keenin lahaa waxa markaan qolay habeenkaas waxaan aan qolay maxay waan ogolaanay inaan shaqada iska casilno oo nala siiyo xaqayna laakiin hadii away marka madaxbanaanadii gudiga doorashada maxaa ku dhacay degashay mid kale dadka maxay ay warka leeyihiin waxaan maartay aan aniga maxaa dhacay waxa samaartay yani qasbina inaan ku qoro my diary that today gudiga madaxbanaanadiisa waa dhimatay hagaag dhanka iyo madaxweyne Kibaki waa la soo shaqeysay Uhuru Kenyatta waa la soo shaqeysay markaad eegto labadooda waxay ku kala duwan yihiin horta Kibaki wuxuu ahayn oo aad u degan oday buu ahaa oo wax badan hadal badan lama ahayn wuxuu ahaa introvert su'aashii una warsan buu ka jawaabay laakiin mostly wuxuu isaga inuu wuxuu fiirinaa dadka martay in agtiisa joogo waxay subinayaan marmar of course waqti aan baranay waqti waxay uu daalay oo u duqoobay oo maartay wuuna jiraday markaas samsan adagoo ku jirto shirka maartay ayaa arkay uska hurdi marba soo kacdana hatta reeyla waa cudurkaas inuu hurdo asoo shir hogaamiyo laakiin asaga iyo Uhuru wuxuu kala duwan yihiin Uhuru waa nin oo active waa nin oo dhalinyaro ah marka anytime aad la kulanto su'aalo badan buu leeyahay haysta wax buu qoranayaa mar kasta wax buu maartay ku weydiini laakiin waxay ahayd dhibka uu waxay ahayd balantisa balan mu ofin jirin asaga maqlin balan waa gartay qaybaha dambe ee dardaaranka bugaad ku qortay waxaan arkay kow inaad horta negotiated democracy gobolkeena aad loogu sameeyo inaad ka hor imaasan tahay sababta كمان مثلا لكن سنة ديمقراطية iyo dad in la soo doortay ka hor imaanaysa waxaan ka hadlay Somalia was the only country or the leaders choose their voters the leaders waxay dooranayaan dadka asaga dadka ay ka dooran doono صح maxay waxay dhahan doorashada dadban صح indirect election صح
boqol iyo kow qof oo ka imaadeen bulshada civil society oday dhaqameedka muxuu ahaa kuwaas markaa intay fadhiistaan asan electoral college ayay dooranayeen madaxweynaha sorry ayay dooranayeen xildhibaankii kii oo senatka iyo kii baarlamaanka house of the people marka taasa marka ku waday taasaan ku waday negotiated democracy no it was democracy by installment taas waa democracy by installment our democracy in Mandera iyo Garissa we call it negotiated maxaa yeelay qabiilkaas ku imaani oo ku heshiin moogtahay laakiin most times qabiilka waxay ku heshiiyaan ma socoto markasta always sidoo kale waxaad ka hor imaadsan tahay ama aad fikrad ka duwan aad aaminsan tahay arrimahan winners takes all taas waxaan u arkaa aniga fiiri madaxweynaha haddii doorashada adaa fiiriso madaxweynaha Ruto kale wuxuu ku guuleystay 50.0% kan kana wuxuu haystaa 49% waa almost half the wadanka nuskiisa nin baa wataa nus kale nin baa wataa awoodda marka kudi hal qof baa ka qaadani ninka kale wuxuu noqon waxba yahow inuu maartay marka sidaas wadamaha kale ku fiican tahay oo maartay oo ay democratic laakiin wadan Afrikaan ah oo weli qabiil ay ku jirto kuma fiicno maxaa yeelay qofka qabiilka wuxuu rabaa inay ka muuqdaan maartay miiska oo wax lagu qeybiyo hatta waxba ka leeynaga laakiin waxay ku fiican tahay inay saas ku keenaysaa maartay wadanka nabad iyo inclusivity marka haddii oo taas laga waayo aniga waxaan u arkaa in la expand gareeyo madaxweynaha executive oo uu leeyahay madaxweyne fed prime minister iyo two deputy prime ministers iyo official leader of opposition iyo deputy sida hadii marka leedahay in kasta marka inuu meel u haysto midda labaad wadamaha qaar waxa arkaysa America kale ama Nigeria qof governor oo state haysto yaa u istaagay madaxweynenimo hadduu ku guuleysto uu noqon madaxweyne hadduu ka dhaco wuxuu ku noqon governor in madiisadana waxa arkaysa senator a whole state ka imaaday America kale oo istaagay madaxweynenimo hadduu waayo wuxuu noqon congress waa wali waa senator marka taasna in maanta loo suubiyo waxa ay lahaan soft landing meel qofku soo dhaco meel ku soo dhaco gabagabadii dardaarkaaga ugu dambeeya waxay fara badan noloshaada ku saabsan iyo buugga arrimaha uga hadashay waqtiga ay noo saamaxaynin waqtiga aan ku sheegnay aad baan uga dib dhacnay waa soo gabagabeynaa dardaarankaaga dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed waxaad ugu dardaarmaysaa dardaaranka horta waxaa dadka weli buugan akhrin waxaan rabaa inay akhriyaan waxaana ku tala jiraa insha Allah haddii aan fursad aan helo inaan ku turjuwaano luqadda Soomaali sifa ay kana maartay dadka Soomaaliga ay ogaadaan maxaa la arrimo kaliya oo Kenya meeshan kuma qorno waxaan ku qoray arrimaha oo Soomaaliya iyana oo barka dastuurka iyo barka doorashada marka waxaan fiiri dadka inay akhristaan midda labaad daalinta waxaan leeyahay maartay wadankanaydo waxaan soo binay taariikh baan dhignay adana Soomaali shaqada nolol qabto nolol dhibo inaan si fiican u qabanayno oo waqtiga maartay wadanka uu hoos u yaalo ama maartay looga samro oo looga cabso inuu kala tago Soomaalida maartay yaa qabata oo ku badbaada marka taas waxaan ku subinay inaan maartay aan akhrisano oo dad maartay professional shaqada nolol aan wado shaqo oo maartay bari aan ahayn maartay musuqmaasuq waxaan ku xadaynin oo laakiin si shaqada lagu qabtay oo fulinayso marka waxaan leeyahay marka that reputation kaas waa inaan hayno oo maartay uu noo yaalo hadda waxa arkaysaa wadanka madaxweynaha uu ka yahay Ruto Soomaalida buu ka dhigay shaqo si ugu dambeeyay wuxuu ahaa Nuruddin Farax oo u dhibay shaqo oo maartay iskalaaf Soomaaliya ata Muslim aan loo ogolin horaan waxa weeye director of intelligence waa shaqo maartay aad u weyn marka dhalinta waxaan dhihi lahaa fiiriya dadka idinka weyn oo hadda maartay meelaha shaqo weyn qabtay kuwaas ku dada maartay ka baxa maartay ciyaarta maartay iyo
waxaan social media macnaha leedahay akhrista jaamacadda aada sifo markaa aad wadanka maartay ka muuqatiin aad baad u mahadsantahay gudoomiye senior council waqtigaaga waan kaaga mahadnaqaynaa iyo weliba barnaamijkan sirta horumarka idaacadda Iftiin Family isku madinaad martay nooga hato guud ahaan dhegeystayaal iyo daawadayaal waxaa intaa ku eg barnaamijkii sirta horumarka oo caawa martay inoogu ahaa gudoomiye hore guddiga IBC-da mudane Axmed Isaaq Xasan waxa uu yahay waa gudoomiye hore guddiga IBC-da sidoo kale waxa uu yahay qareen ka shaqeeya ama ka howlgala maxkamadda sare ee dalka barnaamijka waxa soo saaray idin soo siinay anigoo Suleymaan Sharjmaal Suleymaan Buqaari dhanka farsamada Maymuuna Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdiqaadir Cilmi ayaa iga caawiyay tan intayna ka kulmi doono barnaamijka mid lamid ah waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaana Allah